wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Cabdicasiis Maxamed Samaale oo maanta socdaal shaqo ku yimid magaalada Berbera ee caasimadda gobolka Saaxil ayaa waxa uu wasiirku soo kormeeray xarumaha dakhli ururinta ugu ballaaran ee Soomaaliland sida dekedda caalamiga ee Berbera Port, haamaha kaydka shidaalka iyo waliba xarunta kastamka Berbera. sidoo kale waxaa kormeerka wasiirka aan ka badhnayn xarumaha cashuuraha bariga iyo dowladda hoose ee Berbera, isagoo halkaasi soo indheeyay sida ay u socdaan hawlaha shaqo ee goobahaasi. waxaana halkaasi warbixino kooban kaga dhageystay mas'uuliyiinta xafiisyadaasi, iyagoona halkaasi warbixino hufan ka siiyay wasiirka sida ay u socdaan hawlaha shaqo ee goob kasta. mas'uuliyiintii warbixinaha kooban siiyay wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland waxaa ka mid ahaa maareeyaha ku-xigeenka dekedda Berbera Cumar Abubakar Jaamac, maareeyaha haamaha shidaalka Berbera Sheekh Saleebaan Siciid Cali, maamulaha kastamka Berbera Maxamed Cabdi Gurxan, iyo mas'uuliyiinta gobolka Saaxil iyo kuwa degmada Berbera oo halkaasi wasiirka uga waramay xaaladda gobolka iyo degmada Berbera. anagu oo isla wax hay'ad qabsato waa wixii ugu weynaaye ama hay'ad dawlad qabsato mashruuca nimanka dekedda balaarintiisu waanay ka badan tahay khidmadda iyo service yar dekedda soo gala hawsha aan halka ka qabanay. cabirkiisuna waa 150 mitir oo dhinaca bari galbeedka iyo 110 mitir oo dhinaca koonfurta. sidoo kale wasiir waxa maanta isaguna shaqadii noo bilaabay oo shaqeynaya taangigaas oo sana taangi 5 la yiraahdo caana si muddo aad iyo aad u badan aan shaqeynin oo 3700 mitir tan isaguna qaadaya. isaguna shaqadiisii uu bilaabaya markabka hadda la soo xidhayna waa taangiga hadda lagu shubayo shidaalkiisa. wasiir xafiiskana waa keenii labaad xafiiska cashuuraha bariga waxaanu ka soo baxnay xafiiskii wasaaradda maaliyadda ee customiska waxaanu imika joognaa xafiiskii cashuuraha bariga ee gobolka. runtii waa xafiis ka mid ah xafiisyada ugu culculus ee xagga dakhli soo saarka waaxda cashuuraha bariga. mudane wasiir waxaan noo farxada ku soo dhaweynaynaa degmada Berbera. halkan aynu ka fadhinaa waa dawladdii hoose. dawladda hoose waxaa imika noo socda wax mashaariic ah oo gacanta ku haynaa diliinays 1 kiiloomitir iyo 600 ah. wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Cabdicasiis Maxamed Samaale oo isagu kormeerkaasi kadib saxaafadda la hadlay ayaa ka waramay kormeerkiisan iyo waxyaabaha uu salka ku hayo. sidoo kalena waxa uu mas'uuliyiinta hay'adaha laamaha dawladda ee gobolka Saaxil uu ku amaanay wasiirku hawlaha shaqo ay qaranka u hayaan. guud ahaan runtii wax qabadka qarankeena ay ka mid tahay qof walbana meesha uu joogay iyo xilka uu hayo ummadda uu hayo inuu si daacadnimo u guto ayaa qiimaheeda leh. wax qabadkooda muuqda aad baan ugu amaanayaa. waxaan jecelahay wada shaqaynta dhow ee ay wasaaradda maaliyadda leeyihiin inay si adkeeyaan wada shaqaynta dhow ee waaxaha kala duwan ee qaranka ee gobolka ka shaqeeya ay leeyihiin runtii si adkaado. aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa, aad iyo aad baan idinku ammaanayaa guud ahaan wax qabadka muuqda ee ka muujiseen degmada. waxaan rajaynayaa waxaan filaynaa in wax qabadku intaa ka sii bato. intaasi kadib waxa wasiirku kulan qadan sharaf ah la qaatay mas'uuliyiinta hay'adaha laamaha dawladda ee gobolka Saaxil iyo sidoo kale qaar ka mid ah cuqaasha iyo waxgaradka gobolka. Khalid Xasan Nuur iyo waliba Sakariya Cabdi Caabi, telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV magaalada Berbera.